معناها ليش أسباب وقلت راح تكتي أودينا هالقلادات قشوا واحد تري أصلا هب لهاي ما حاران يوسف وانين مسؤولة وانين معناها إن حياتي سلطان Soomaali oo dhan mas'uuliya iska dhaaf adiga xahatay gabar iyo waxaas islaan iyo wax iska dhaafay waa nin mas'uul ah qodhay mas'uul hada taqaanin mas'uulada xataa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري هذا صاحبتي قالقة ميلو لو جوجتين بو ولا شنسي عمدي وإذن لا مركلة مقال عصب كسر هذا مقال كنا مانتي فضلا جنال كي قداكو عصبتا سبسكرايب يسار هدا هورنا ولا جوجتنا كومنت لايك شير انت ونو عاوي وكاغا مهد علنا لا جوجستادا صحابتي عصب waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi idin jecel walaal qalbi furan ku soo dhawaada asxaabta hore ila joogtana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa idin mahad celinaya halkaas madaxa maartiin aanoo saarantihiin gacanta waa qalfoof qalbi to qalbi aan leeyahay soo dhawaada asxaabtayda qaaliga meel wada joogtiinbo aad baa idin jecelahay please waan ku bariyaa walaalkayga qaaliga walaashayda qaaliga ha ila garamarin subscribe like share comment si tuuriya barnaamijka channelka kala kacay Facebook ku tuur WhatsApp ku tuur waxa Snapchat ka dhig Twitter ka waxa war meel kasta aad isticmaasho dhig fiidiyogan ha iska kala kaco waxana ka faa'iidaa insha Allah adigana maxaan ku dhahay kaaga mahad celinayaa maxal dhahay awal ningala wala arkay laakiin ninguda lama arkin aan lama dhino waa inii mahad celinaya walaalahayga qaaliga ee nina ilaahay adoonkiisina oo mahad celin ilaahayna ma mahad celinaa la dhahay mahad goobad ilaahay baa iskale tan labaadna asxaabtayda qaaliga ah iskale ku soo dhawaada video kale cusub maanta maxaa xasaasi halka waxaa maanta ka hadlayn title ka soo aragteenbo ama video hordhiciisa ka soo aragteenbo waxaan rabnaa maanta inaan la hadalno laba gabdhood oo walaalaheena oo fanaaniin oo qaali agtanada ka aan rabnaa inaan halkaan fariin uga gudbiyo waa Ilhaan Xarago iyo Bilqayr Axmed labaas gabdhood oo walaalaheena oo isku dhagan aan waxaana fariin u gudbino fariinta u gudbinayna waxay tahay horta waxa la yiraahdaa afdaboola waa dahab la dhahay aad iyo aad afdaboola waa dahab hadalka waxa la inta uurka ku jiro ayuu ammaan leeyahay dhahay horta aniga hawshaas waxaan dhihi karaa haddaan aqligayga qiyaaso ka dhibta ra'yigayga waxaan dhihi karaa waa prank aan dhihi karaa waadna soo ogaan doontiin waa prank aan dhihi karaa because Soomaalida ayaantan waxay keenaan labada qof oo aad isugu fiicnaan jirto aad la isugu arki jiray in inta kala boodaan ay dhahaan hebel saan u iigal marka sidaan oo dhan uma xumina u maleynaa oo Soomaali sidaan oo dhan uma xume hawshan waxa u maleynaa inay prank tahan u maleynaa horta siday prank waaye Soomaalida ayaantan prank ku waalatay ee qalad ka fahmeen oo waxaan dhihi karaa been la toosiyay laakiin haday run tahay hawshan run ay u dhacday aniga waxaan dhihi lahaa waxaasaytu waa wax laga qurux badan yahay waana wax laga fiican yahay qof walaalkaaga Ilhaan mid baan leeyahay Bilqayr Axmedna mid baan leeyahay Ilhaan waxaan leeyahay qof walaalkaaga gurigiisa kugu soo dhaweeyay si sharaf leh kugu soo dhaweeyay horta inaad dib ugu noqoto oo gurigiisa iyo luuqadiisa aad fiiriso dib ugu noqoto waa wax laga qurux badan yahay oo waa wax laga qurux badan even hadayba dhacdaba hawshan waa wax laga qurux badan yahay hadii ay sadicino prank tahan haday iga raali oo wada waa prank tan kale Bilqayrna waxaan dhihi lahaa qofka bini'aadanka horta hadaad ma ku kalsooneen marka horeba lama soo dhaweeysto maxaa u soo dhaweeysanay marka horeba qofka hadaad ku kalsooneen oo kalsooni ku qabinin maxaa u soo dhaweeysanaysaa gurigaaga maxaa u keensanay haduu ninkaaga saas indhaha u taagtaagayo oo ilaah indhaha naagaha la raacay marka horeba iga jooga dheh isku kalsoono aan ku dhihi lahaa aniga isku kalsoono marka ani waxaan dhihi lahaa horta Bilqayr isku kalsoono waan dhihi lahaa kulli kalsooni way ka muuqataa ninkaagana oo ku kalsoontahay Yusufna aniga qof dhacdhaca iyo qof akhlaaq xun midna ilmaha nin weyn oo mas'uul oo sharaf loo leeyahay waxaan ku dhahay nin aad iyo aad u degan oo idab leh oo akhlaaq leh oo fanaan iyo abwaan Soomaalida isku jira waay ninkaasayto nin dhacdhaco iyo nin akhlaaq xun iyo nin maxaan ku dhahay taas u dhacdhaca aniga uma maleynaayo inuu yahay waayo qof walba wajigiisa marka fiirsa ka dheehanaysa wuxuu yahay marka aniga gabdhaas walaalahayga waxaan dhihi lahaa waxaan da prank ka weytiin hada waa prank asagoo did wax oo ka hadal ma balahanbo laakiin hadayba waxaasayta ay run tahay waxaas waa wax laga qurux badan yahay bilaa calee kala xishooda kala aamusa warkaana intaas ku jira oo kanaga aamusa xishooda bismillaah maalmo laba isku dhagan maalmo laba isceen warkaale social media kale ana Soomaali waan yaabee war social media kale ma maxkamadiina waxba inii qaybisaa
ma waxbuu inii qaybiyaa ma labada qaldan buu kala qabtaa ma maxkamad baa ku kala dacwootiin muxuu inii qabtaa social media waa idinka laba walba markay xoogaa xanu dhex marta soo dhigay saanu iyeelay saanay iyeesha saanay ka war ilaahay ka cabsada naga daaya maalin walba dhagaxumada iyo hadalxumada iyo intuu ka dhacay iyo intuu fiiriyay intuu ka dhacay mid kale ilaahay maxay tiri hadaladeeda waxaa ku jiray naawaad ninka markaan guursanay waad ogeeday shirkaan ku ahayna war waxaas wax soconaya ma ahane saqiirka xataa kuma fakere wax jiran inaysan ahayn waan dareemaynaa waan u jeednaaye frankiga naga soo afjaraya naga soo afjar frankiga naga reer xansugaa nala dhahayo